qaadanaysa kolba saacad qaaliyo inoo keenaan masaakiinta hoos loo eego horta inay biyo cabaan iyo in kale hal ogaado waxay dadku qabaan horta hal ogaado dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafadda Xero Owr ee degmada Ibrahim Koodbuur ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay xaafadda Xero Owr ayaa sheegay in cabasho weyn ka muujinayaan wakaaladda biyaha ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyagoo sheegay in wakaaladda biyuhu ay sheegtay in la bedeli doono saacadihii hore taa bedelkeegana ay qaadan doonaan saacado cusub oo qadarka lacagteedu ay dhan tahay $50 iyagoo dadweynuhu sheegay inaanay awoodin lacagtaasi ay wakaaladdu jaangoysay inay bixin karayaan dhanka kale waxa ay fariin dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta sarsare ee wakaaladda biyaha ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa mareeyu markii hore wakaaladda biyuhu waxay nagu yiraahdeen iska bedela saacadaha biyaha imikana mareeyu wuxuu hadana dib noogu soo rogay inuu yiraahdo saacadihii $50 bixiya iyo wax ka badanba marka mareeyaha waanu diidanahay inaanu magaranaysan iska bedelo ma bixin karno marka ha saacadaha iska bixin karno ya annaga hayna bay nagu yiraahdeen annaga noo imanaysaano lacag dawlad gashay iyaga iibinaya marka saacadaha ma doonaysa kolba saacad qaaliyo inoo keenaan masaakiinta hoos loo eego horta inay biyo cabaan iyo in kale hal ogaado waxay dadku qabaan horta hal ogaado marka la ogaado wixii ka dambeeya wixii dadka lagu xukumaa marka horeysa lacag booliyay qaataano aanay dadku qabin oo la cabin marka horeysaba waanu diidnay ma rabna saacada la noo galiyo hadii taa la noola yimaado waxaanu ka naqaanaa in shoobara adag ka dhacdo sidaas waxaan ku leeyahay madaxweyne mudane madaxweyne hoos u eeg dadkaaga hoos u eeg madaxweyne annaga oo dhibaato wadanka la jeclayn annagoo wadanku inuu gilgilmo jeclayn annagoo dhibaato la jeclayn annagoo nabad la jecel haddana nimanka biyuhu yay kugu xoqan ragga biyuhu yay kugu xoqan inoo ceebaanad lahayn dusha ka saarin waa inaad biyaha iyo dadka soo kala gaadhaa shicibka dhibaato aan qaadi karayn ayaa dushana laga saarayaa ma qaadi karo saacado 50 ma qaadi karo saacado 50 oo faas loo xirayo xarunta laga maamulayo mudane madaxweyne ma qaadi karo ayaanu ceebtaa kugu soo galgalan ninka ragga biyaha xukuma kan waxa ka hadlaysa degmada Koodbuur waxaan la hadlaynaa madaxweynaha iyaga iyo dhibaato toona ma samaynayno waxaanu biyahaasaan ku noolayn biyo waanu cabi jirnay laakiin waxaanu ka dooraynaa waxa weeyaan saacadaha aanan karayn dadka bukaanoo jiifaan dadka bukaanu cabinayno biyo waanu qabno ma diidanin laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin deena soo kala gaadha sida ay nabadgel waxaanu ka hadlaynaa waa saacadaha imika la qaadaya baa mushtarku soo samaystay ee dhaqdhaqaaqa uu kala fadhiyo kursigiisa uu ku fadhiyo kula socdo oo shaqaalaha baabinayo ninkii uu shaqeynay kursigiisa jaraya dadweynuhu ku talacaya deetana kaasaanu ka hadlaynaa mudane madaxweyne sare hoos u eega dadkaaga hoos u eego haddii kala soo baraanu samaynanaa anagoo xaafadda Koodbuur ayaa kala hadlanaa inaanu wakaaladda biyuhu nagu yiraahdeen saacadiina la bedelayaa dad yaro waxa jirta aan magaras iibsan karin ayaa waxa jirta aan isha dhawad lagu yiri saacadiina way fadhiyaan haddana imika la yiri iibsada oon iibsan karayn oon dabka shidan karayn oon maanta aan loogayn habeenkii dab shiteen kale oon saacad iibsan karayn xaafadda Koodbuur waa isku wada raacsan tahay inaana la iibsan karin oon heli karin Axmed Midnimo telefishinka Sahan Hargeysa